munaasabad lagu maamuusayay 5 sanad guurada ka soo wareegatay aasaaska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xalay lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle, mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya, fanaaniin qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar. Munaasabadan ayaa inta ay socoto waxaa lagu soo bandhigay suugaan lagu cabirayay horumarka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dakhliga ceegaagan gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle. Mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka qayb gashay xafladan lagu maamuusayay 5 sanad guurada ka soo wareegatay aasaaska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa khudbado kala duwan ka jeediyay, iyagoona sheegay ahmiyadda maamulka Hirshabelle uu u leeyahay dowladnimada iyo horumarka guud ahaanba dalka Soomaaliya. dhalinyarada dowlad goboleedka Hirshabelle kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba caawa farxad gooni ay noo tahay. waxaa idin leeyahay hambalyo. annaga maadaama u yarnahay oo aan kii ugu dambeeyo la dhisaanahay inaan saas u tartanno oo aan kowsan u noqon lahayn, tusaale saan u noqon lahayn, waxbarasho, caafimaad, hoggaan iyo midnimo markay noqoto, iyo weliba meelihii lagu curi lahaa fikradihii Soomaali weyn oo dhan laga hogaamin lahaa insha Allah. waqtiga kooban dartiis hambalyo reer Hirshabelle meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba. waxaan leeyahay caawada war kale ma jiro. hambalyo aniga daraad balweyne ka soo duulay shalana Jowhar ay imid. waxaa u imid farxadda inay idinla qaato idinla qaybsado reer Hirshabelle halwan. reer Hirshabelle laba ma ahan. reer Hirshabelle ha noolaadaan, madaxweyne Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa ha noolaadaan. mid ogaada ilaahayna inaga yeeli maayo. hadday jiri lahaydna qof ilaahay uma baahnaan lahayn janno iyo naar inuu abuuro, taasoo micnaheedu yahay in bini aadamka kala aragti uu noqon karo, aragti muxaafid iyo aragti mucaarad uu noqon karo. baarlamaankaas annagoo waxa waaye ka wada mid ah, laakiin waa inaanan kala aragti ka noqonin Hirshabelle-nimada oo aan ula jeedo sistamka aan ku soo soconay inaysan ahayn sistem qurux badan. dowladdii isteedka iyo intii ku matalaysay xiriirkoodii inuusan ahayn wax wada jira ama wada shaqeeya ama hal dhinac u shaqeeya. waxaan rajaynayaa isfahamka hadda ka dhaxeeya madaxda hadda jirta mid la mid ah inuu ka dhaxeeyo wada shaqayn oo ah markii xuquuq u raadinta dowlad goboleedka ama dowladda Hirshabelle looga raadinayo federaalka iyo mawaaqifteeda in lagu difaaco inaan ka mid noqono. wixii kale aragti kale aan ku kala duwanaana aan ku duwnaado. Hirshabelle waxaan u rajaynayaa dadkeeda iyo deegaankeedaba horumar aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum. waxaan ku faraxsanahay mudane madaxweyne 5 Oktoobar inay ku soo beegantay maamulkii aad hoggaanka u haysay ee Hirshabelle doorashadiisa iyo diyaargarow waqti dheer soo qaatay oo dalka guud ahaan uu galayo marxalad kale ee doorashadii guud ee dalka ah. salaan kadib caawa waxaan rabaa inaan la qaybsado farxaddan ummadda u abtirsata Hirshabelle ee degan kuna nool labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. waxaan leeyahay hambalyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu nagu geersiiyo horumar, bash iyo barwaaqo iyo annagoo midaysan insha Allah. ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo ka hadlay gabagabada munaasabadan ayaa waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in Hirshabelle mid ah la helo, taasina dadaal iyo juhdi badan ay ku bixinayaan. koobi karo marka hore waxaan leeyahay Hirshabelle meel kasta ay joogaan dal iyo dibad waxaan leeyahay hambalyo. ilaahay sanadkan sanadkiisa kale kuwii guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo xus kale oo ka soo wareegay sanadkan sanadkiisa kale sameeya ilaahay ka dhigo. waxaan rabaa dadka reer Hirshabelle hadallo badan oo halkaan ka yeeray oo rag badan oo saaxiibada oo iga horeeyay halkaan ka sheegeen inaan ka sumayn xiro
oon idhaaho raalli ka ahaada reer Hirshabeellow idima qabato meeshaad u socoteen maahan meeshaad ka socoteen in leedii celiyana aadaan ugu xumahay marka cimaamad iyo sumeyn iyo hadba saad ugu raalli garo aad u garan kartiin waxaan leeyahay hambalyo ummadda Hirshabeelle sanad guurada shanaad ee dawladda Hirshabeelle runtii caawa aad iyo aad ummadda Hirshabeelle qalbigeeda ugu weyn waa habeenkii la aasaasay 5 sano ka hor runtii waxaan leeyahay hambalyo runtii waa xilli dambo wax badan aad maaragtay ku habooneed inaan isla wadaago waxaan rabaa qodob laga hadlay inaan sidii ku haboon uga hadlo qodobka tabashada jirto diyaar waxaan u nahay hadaan mas'uuliyiinta Hirshabeelle cid kaste wax tabanayso inaan kala fadhiisano waxay tabaysana aan ka qancino waliba waxay ku qancayso oo macquul ah inaan ku qancino diyaar ayaan u nahay taasina ogaada Shariif Shuriya Xaashi Jubaland TV magaalada Jowhar